xaar walwaalku waxa la yiraahdaa hal mar buu isarkaa isagoo xaar riixaya ayuu ka kalena dacalka kale kaga yimaada waligood iyagoo wada socda iyo iyagoo urursan iyo iyagoo talale midna arki maysid midba markuu dhasho meel buu u dhaqaaqaa marka saxarada qurunka ay riixayaan bay isku arkaan hadday sarkaanna way isdilaan ilaahay muxuu ku ciqaabay wixii ugu qurunsanaa inay ka shaqeeyaan markaas haddaad marka noqoto qof aan hogaansanayn haddaad noqoto qof aan khayr ka shaqaynayn haddaad noqoto qof aan bulshada heshiis la ahayn haddaad noqoto qof aan ardayda heshiis la ahayn haddaad noqoto qof aan macallimiinta heshiis la ahayn sida xaar walwaalka meel cidla baad ku dhiman waxaa la yiraahdaa xayawaanaadka ilaahay makhluuq oo abuuray laba kamida tusaale loo soo qaataa midi waxaa la yiraahdaa xataa bani aadamka wuu ka hoggaan wanaagsan yahay midna waxaa la yiraahdaa cayayaanka labaad waa ka ugu hoggaannimada iyo muwaafaqada iyo heshiiska iyo wada dhaqanka ka ugu liita weeye ilaahay wixii ugu liitay uu ku abaal mariyay marka baasha la yiraahdaa shinnida ilaahay quraanka ku amaanay wa awxa rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun baasha ilaahay quraanka ku amaanay waxa la yiraahdaa waxay leedahay quraanjadu waxaan u jeedaa waxay leedahay naxlada ama shinnidu waxay leedahay hal hoggaan bay leedahay hoggaanka marna ma khilaafto maadaama ay tahay wax muwaafaqo loo la hoggaamin karo is hoggaamiya waad aragtay shinnida hadii laga qabto midda boqorada qof dambe qaniini mayso boqorada kaliya ba amar siisa boqoradaas ay ka wada amar qaadataa quraanjada waad aragtay wadada markay socoto fiilay ku socotaa haddaad halka u horeeya ka qabato ilaa intay madax kale ka dooranayso ma dhaqaaqayso maanta oo dhan way isku wareegaysaa waxa la yiraahdaa shinnida ilaahay wuxuu ku abaal mariyay wixii ugu macaanaa wax la dhadhamiyo inuu ilaahay iyada ku keeno sababteeda iyo juhdigeeda halka shinnida kamidkii wuxuu duuli karaa 10 mayl buu kaligi duuli karaa meeshuu ka yimidna marna inuu khaldan lagama yaabo waa hoggaan wanaag iyo kala amar qaadashada ayayaan kale waxa lagu tilmaamay inuu ilaahay duleeyay wuxuu u duleeyay waanu wada dhaqmi karin ma wada shaqayn karo ma wada noolaan karo waa cayayaanka ka ugu liita maxaa la yiraahdaa xaar walwaal baa la yiraahdaa xaar walwaalku waxa la yiraahdaa hal mar buu isarkaa isagoo xaar riixaya ayuu ka kalena dacalka kale kaga yimaada waligood iyagoo wada socda iyo iyagoo urursan iyo iyagoo talale midna arki maysid midba markuu dhasho meel buu u dhaqaaqaa marka saxarada qurunka ay riixayaan bay isku arkaan hadday sarkaanna way isdilaan ilaahay muxuu ku ciqaabay wixii ugu qurunsanaa inay ka shaqeeyaan markaas haddaad marka noqoto qof aan hoggaansanayn haddaad noqoto qof aan khayr ka shaqaynayn haddaad noqoto qof aan bulshada heshiis la ahayn haddaad noqoto qof aan ardayda heshiis la ahayn haddaad noqoto qof aan macallimiinta heshiis la ahayn sida xaar walwaalka meel cidla baad ku dhiman